dadkan ku dhagaya calaamada ee doonaya inay kursiga fadhiyaan ee xabadda loogu dhajiyayna ma garanayaan kuwii ka horeeyay aayadooda halkay tageen xabaashiyada basmaysa oo halka cumar isku qaban doono waliba ninka kii dadka xumeeya aad loogu sii xumayn doono marka ilaahay ha inoo yasiro iyagana ilaahay ha aqoonsiiyo dhibaatada geysanayaan dadka wadada geysanaya ilaahay garisiiyo waayo calanku waa wareegta weeyaan waa la wada leeyahay waa naga dhaxeeya wayna iska wareejiyaan oo idhahda walaadno meel adduunkan anagaynu joogno 4 sannadood mid hooyadoodna qabo food baa la soo dhigaa food ma doonayo anuu baa haysanaya kula tashan maayo ma noqonayso marka waxaan leenahay dowladda Jabuuti food inay soo dhigtaan walaalaha iyagan le waan tartamaynaana inay waxay qabanayaan noo sheegaan waa lagu guraynaa haddii aad ka daranaadaan dibila kuwa soo noo roonaaye وحوي وحنا وصلنا الثاني والبين حرام نطلعوه له كفر طبعا كفر هني نكى كفر هذا ممكن بيجوا ضد تاني ضد كيف قلت الصومالي ما أنتوا حدا عيا سيدي أمد الله ودع عتين ولا ما أنت واتا قد يا رجال ضد سلاوش داب صدق دينتي لقلبي ضد كيو على الله براي ما كان وحوي وحاسر وعقوبة في ضد ودي ضد marka Jabuutina ilaahay wax ka baray inuu dhiig ku daadan ya inuu daadan ma daato dhiig ma daato wala sida dacatiyaan wala sida asdar leeyahay xidii wadaata ma jiro wixii garanaysa deedintayna la uu haysto inta nool ilaahay ay noo heeyo ya